aynu ku bilownay saaxiibayaal madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald J. Trump ayaa wuxuu jeediyay hanjabaadii diblomaasiyadeed ee ugu sareysay oo uu jeediyay weligiis sanadii 1993 ilaa 2015 ayaa wuxuu jeediyay inuu sheegay Iran dagaalka nafsiyeenta way naga guuleysatay military ahaana in naga guuleysta lagama yaabo buu yiri bariga dhexe oo dhan anaga ayaa maamuli doona buu yiri Israa'iilna waanu tirtiri doonaa aniga hadii la doorto waa sidoo mar hore Trump sheegay laakiin imika ayaa wax leeyahay guul darro weyn ayaa dagaalka Mareykanka iyo Iran iyo Israa'iil Mareykanka iyo Israa'iil oo isku dhinacaan iyo Iran oo kaligeeda imika ka soo gaartay waa dhibaato aad u badan iyadoo Iran sheegtay 160 diyaaradood in Mareykanka laga soo riday intii dagaalku uu soconayay sidoo kale Mareykanka iyo Iran yaa guuleystay dhinaca propagandada iyo dagaalka markii la yiraahdo Mareykanka waxay sheegeen in labadii duuliye ee ku dhacay dalkaasi Iran gaar ahaan buuraleyda inay mid kamid ah isagoo nool oo dhaawac ay soo furteen laakiin dhaawac xun uu gaaray saaxiibayaal waxayna sheegeen in ay leeyihiin ciidamo awood u leh alla awood leh oo waxay sheegeen Iran ka soo dhex adeegtay inay dadkooda iyo waxooda ay ugu faaneen halka Iran ay sheegtay inay 160 diyaaradood ay ka soo riday Mareykanka sidoo kale ay cruise ku weerartay difaaceedu imika uu sareeyo markaasna ay shacabkooda u sheegaan been oo ah 95% waanu baabiinay meeliga gantaalada iyo droniska iyo warshadii ay dhahaan dadkooda ay been u sheegaan taas dhacsan markii laga fiiriyana waxa guuleysatay baa leeyahay Iran oo imika ah mid nafsiyana iyo mid siyaasadba u sareysa halka uu Donald Trump marba uu war xaga iska sheegayo sidoo kale Donald Trump wuxuu sheegay saaxiibayaal ilaa iyo talaada hadda Mareykanka uu suuli waayeen inay la kulmi doonaan buu yiri dagaal adag ama cadaab ayuu sheegay inay la kulmi doonaan saacado kadib haddana warkiisu ninkan wax saxan ma ah wuxuu soo sheegay inay ilaa iyo talaada laga yaabo inay isagii Iran ay heshiiyaan oo hadal wanaagsan oo u socdo oo nabad la qaato taasna ay noqoto mid oo kaliya Mareykanka oo ku faani karo sida loo sheegay laakiin saxda dagaalka markii loo eego saaxiibayaal Muuse guuleysan Mareykanka dhinaca kale Jumhuriyadda Islaamiga meesha guuleysan Israa'iilna iyadu waaba mid meesha aan door saasaba aan ku lahayn Mareykankana foosta dagaalka ugu soo riixday Donald Trump iyo isagana waxa laga yaabaa in ay iskhilaafaan bay leeyihiin sidoo kale Mareykanka markii loo fiiriyo oo dagaalka Iran saraakiil badan oo isaga ka hortimid ayuu sheegay Mareykanku inuu xilka ka wada qaaday markii ay dagaalka Iran ay ka hor imaadeen ruuxan wax soconaya ma ahane heshiis qaado dagaalkan iska baa Israa'iil badan ugu jirta ayadan kugu jirto kuwaas oo dhamaan oo xilka ka hayuubiyay halka dhinaca Iran markii aynu fiirino iyadoo oo saraakiil iyo madaxweyne Ayatollah Khamenei la dilay haddana ay Iran oo si isbedel ka dhicin laakiin madaxu dhimatay haddana bedelkoodii la keenay saas markii waxa leeyahay Mareykanka waa laga guuleystay dhanka khaliijka hadii aynu eegno Kuwait ayaa waxay la kulantay inkastoo iyagana la duqeeyay haddana waxay la kulantay duqeyntii ugu adkeyd waxa la sheegay warshad shidaal inay gubatay laakiin madaxda Kuwait waxay sheegeen inay halkaasi wax khasaara aysan ka soo gaarin tolo wax miyay qarinayaan mise waxyaalo kale ayaa jira taas ma cadeyn karna anagu laakiin Mareykanku imika uu iska goodinayaa Mareykanka Iran waxay sheegtay inay safuri doonin dagaalkana inay Mareykanku bilaabay Iran ay tahay cida dagaalka soo gabagabeynaysa ayse wax bariya iyo qarracna ayse ogoleen waxayna leeyihiin adaarabigaas rasaaska bariye ku raaxayso reerka kaaraha Donald Trump halkaas ay Iran imka ay maraysaa wadamada khaliijkuna waa kuwa iyagu markasta la iska duqeeyo oo saas macna saas aan lahayn Mareykankana waxyaalo badan dhaqaalaha uga baxay difaacoodii oo sheegay Mareykanku inuu difaacina isagii ayaa istifaacile ayaa leeyahay saaxiibayaal waxyaalay dambe ka soo cusmanada muqaada kale ayaad ku daawan doontaan yaan idinka iloobinay dhanka Israa'iilna warku waxay sheegeen imika in warshadihii la duqeeyay ay khasaaro badan ka dhalatay inkastoo taas Israa'iil ay markasta gaaladu ay jabkooda ay qarsanayaan oo dhibaato badan halkaas ay ka soo gaartay dadkii banaan baxaya oo reer Israa'iil oo leh Mareykanka anaga iyo Israa'iil kuma jiri karna godadkan iyo waxaan waanu rafaadnay dagaalkii waxa naga soo gabagabeeyay kuwaas oo booliskuna Israa'iil ay halkaasi ay dadka ay ku caburinayeen waxyaalaha dambe ka soo sanada maqaalada kale ee ku daawan doonta bal maqaal kale ka saar oo share garay YouTube-kana korna u qaaday aad baad